ururka OTF oo ah maalinta dhalinyarada ee 20 February ayaa deeq bustayaal iyo timir ku wareejiyay qaybta dhimirka ee isbitaalka magaalada Boorama iyo agoomaha waxaana deeqdaasi ka gudoomay Faadimo Daahir oo ka shaqeysa qaybta dhimirka ee isbitaalka magaalada Boorama waxaana hadaladeedii kamid ah Bismillahir Rahmanir Rahim Ilaaha Rahmaan ayaa mahadle maanta inagoo labada isu keenay inta kadib waxaan salaamayaa salaan qaaliyo u diraya ururkan dhalinyarada ah ee 20 February ay soo xilqaamay ee soo xasuustay dadka walaalahooda ee maanka ka xanuunsanaya una keenay agabka dhaxanta iyo timirta waxaan leenahay halkaad ka soo saarteen ilaahay wax khayr qaba ha idinku bedelo sidoo kale waxa isaguna munaasabada deeqdaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee 20 February Cabdirasaaq Xaaji Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ilaahay baa noo suurta galiyay maanta inaan nimaadno dhakhtarkii dhibirka ee gobolka Awdal Boorame anagoo ku wareejinayna bustayaal iyo agabkii dhaxanta oo ah ururka 20 February oo u taagan ururkii dhagax tuurkii halkan ka bilaabmay maanta laga dhigay nasiib wanaag maalintii dhalinyarada qaranka Soomaaliland waxaan ku wareejinayaa Dr. Aasha Faadimo waqtiga inta helo igala wareegi doontaa hadii haylaha Faadimo nagala wareeg alaabsan oo aan ururkeegan intii adduunka oo dhan ay joogeen ay iska soo ururiyeen qaanaan yar oo ilaahay dadkiini dhaxanta wuxuu naga soo iibiya marka koolka iyo fanaanadaha iyo timirtaaba laga gudoon qof sidoo kale waxa uu deeqta lamida ku wareejiyay farxiyo oo ka socotay ururka agoomaha kala duwan ee magaalada Boorama ma noo suurta galiyay hadana mar labaad inaan la kulanay xaruntii agoomaha oo ay ka wakiil tahay Fatxiyo Xasan oo nagala wareegi doonta anagoo ah 20 February ururkii dhagax tuurkii ee halkan ka soo bilaabmay maantana nasiib wanaag madaxweynihii hore Axmed Maxamuud Siiraayo oo ka dhigay maalintii dhalinyarada qaranka Soomaaliland tiin waniga gudoomiye walaal waa TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama